guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ayaa ansixinta asxaabta qaranka Soomaaliland oo warbaahinta maanta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa ay si rasmi ah u shaaciyeen liiska ururada ka soo gudbay madax taabashada tirintii kunka qof ee gobolada Soomaaliland. gudoomiyaha guddida diiwaangelinta Siciid Maxamed Cilmi Siraadle ayaa halkaasi waxa uu ka akhriyay liiska ururada soo gudbay waxaanay u dhignaayeen sida tan. waxaan halkan idinka akhriyayaa go'aanka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta qaranka ee ku saabsan ururadii buuxiyay shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda ee u gudbay inay ka qayb galaan doorashada loo geliyo axsaabta qaranka. ujeedo ururada siyaasadda ee buuxiyay shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda. markaan aragnay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad faqradiisa 1aad, qodobka 22aad faqradiisa 1aad, qodobka 22aad faqradiisa 2aad iyo qodobka 23aad faqradiisa 3aad. markaan tixgelinay waajibaadka xilka iyo awoodaha uu guddigan siiyay xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasadda xeer lambar 14/2011. markaan aragnay xeer lambar 14/2011 qodobkiisa 5aad. markaan hubinay natiijada warbixintii kormeerka gobolada dalka ee ururada siyaasadda, waxay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta qaranku maanta oo ay taariikhdu tahay 6 Noofembar 2022 halkan si rasmi ah ugu baahinaysaa kuna dhawaaqaysaa ururada siyaasadda ee buuxiyay shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda, sidaas darteedna xaq u yeeshay inay ka qayb galaan doorashada axsaabta qaranka. waana sidan: 1 urur siyaasadeedka Waaberi, 2 urur siyaasadeedka shacabka SBP, 3 urur siyaasadeedka Horseed, 4 urur siyaasadeedka Rejo, 5 urur siyaasadeedka Barwaaqo, 6 urur siyaasadeedka Hillaac, 7 urur siyaasadeedka Mideeye, 8 urur siyaasadeedka Ogaal iyo 9 urur siyaasadeedka Kaah. 9ka urur ayaa u soo baxay inay ka mid noqdaan ururada u tartami doona ee axsaabta qaranka kala qayb geli doona doorashada axsaabta qaranka. guddidiina sidaasay go'aamisay. wabilaahi tawfiiq. Maxamed Suldan, Telefishinka Hon Cable, Hargeysa.